kadib dagaalkii labaad ee dunida. Kani waa dagaalkii ugu dheeraa ee dunida soo mara casrigan. Dagaalkan waxaa la isu adeegsaday wax walba oo hub oo la heli kara casrigan aan ka ahayn nuclear. Hataa haddii ay heli lahaayeen nuclear waa isu isticmaali lahaayeen. Kani waa dagaalkii ay ka qayb galeen 40% dhalinyarada qaangaarka ahayd. Dagaalkani ayaa qaatay 8 sano. Wuxuu sababay in ay ku dhintaan in ka badan 1 milyan oo ruux. Waxaana ku dhaawacmay in ka badan 2 milyan oo ruux. Waxaa dagaalkan ku burburay in ka badan 157 magaalo oo Iiraan iyo Ciraaq ka kala tirsan. Sidoo kale waxaa la waayay 1500 oo tuulo. Waxaa la sheegaa in ka badan 250 bilyan oo doolarka Mareykanka ah ay dagaalkan ugu baaba'day labada dal. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta oo ku falanqeyn doona dagaalkii u dhaxeeyay Iiraan iyo Ciraaq 1980. Haddii aad channel ku cusub tahay, please subscribe noo saar. Haddii hore nala joogtay waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Waa anigoo ah Abdaxkiim Elanco. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Dagaalkii u dhaxeeyay Iiraan iyo Ciraaq wuxuu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa uguna khasaaraha badnaa ee ka dhacay bariga dhexe qarniga 20aad. Si aan u fahanno sababta dagaalkan u dhacay, waa inaan dib ugu laabanaa waqti ka hor 1980. Labada dal waxay muddo dheer isku hayeen arrimo la xiriira xuduudaha, gaar ahaan webiga loo yaqaan Shaat al-Carab oo ahaa marin muhiim u ah ganacsiga iyo dhoofinta saliidda. Sidoo kale waxaa jiray tartan ku saabsan cidda hogaaminaysa gobolka. Mid walba wuxuu doonayay inuu noqdo awoodda ugu weyn ee bariga dhexe. Markii la soo gaaray sanadkii 1979, Iiraan waxaa ka dhacay kacaankii lagu riday xukunkii boqortooyada ee Sheekh Mohammed Ridha Pahlavi. Waxaa talada la wareegay nidaam Islaami ah oo hogaaminaya Ayatollah Khomeini. Kacaankaasi wuxuu si weyn u bedelay Iiraan, wuxuuna cabsi geliyay dalalka dariska ah, gaar ahaan Ciraaq oo xilligaas hogaaminayay Saddam Hussein. Saddam wuxuu ka baqay in fikirka kacaanka Islaamiga ah uu ku faafo dalkiisa, maadaama Ciraaq ay sidoo kale leedahay dad badan oo Shiico ah. Markii uu arkay in Iiraan ay ku jirto jahwareer siyaasadeed iyo mid ciidan kadib kacaankii Islaamiga ahaa, Saddam Hussein wuxuu go'aansaday in uu ka faa'iideysto fursaddan. Bishii Sebtembar 1980, Ciraaq waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday weerar ballaaran oo lagu qaaday dalka Iiraan. إن المؤامرة بدأت أساسا بالحرب العراقية الإيرانية. عملية إلهاء للعراق، وحتى من طرف آخر عملية إلهاء لجانب من قدرات إيران الخيرة، لإظهار الجانب اللي يوصل الأمور إلى المهاول الخطيرة. ujeedada ugu weyn ee weerarkaas waxay ahayd madaxweyne Saddam Hussein waqtiga waxay ahayd in la qabsado dhulul muhiim ah oo saliid lana xakameeyo webiga
shaat al carab oo isku haysteen isla markaana la daciifiyo dowladda cusub ee Iiraan. Dagaalkii Ciraaq ay ku qaadaysay Iiraan ayaa si rasmi ah u bilowday. Ciraaq waxay samaysay horumar degdeg ah, waxayna gudaha u gashay dhulka Iiraan. Magaalooyin dhowr ah ayay qabsatay, waxaana u muuqday in Ciraaq ay si fudud ku guuleysan doonto. Laakiin arrintu si degdeg ah ayay isu beddeshay. Dadka Iiraan waxay si weyn u taageersanaayeen dowladooda cusub ee kacaanka Islaamiga ah, waxaana bilaabmay abaabul xooggan oo ciidan iyo mid shacab ah. Sanadkii 1981dii, Iiraan waxay dib u abaabushay ciidankeeda, waxayna bilowday weeraro rogaal celis ah. Ciidamada Iiraan ay ku jiraan kuwa loo yaqaan Revolutionary Guard waxay si tartiib tartiib ah dib ugu qabsadeen dhulkii laga qabsaday. Ugu dambeyntii 1982kii, Iiraan waxay ka saartay ciidamada Ciraaq dhulkeeda. Kadib guushaas Iiraan ay gaartay, Iiraan waxay qaadatay go'aan muhiim ah in dagaalka la sii wado ilaa laga rido madaxweynaha Ciraaq ee Saddam Hussein. Ujeedadii Iiraan ay ku dooneysay inay ku difaacdo dhulkeeda ayaa isu beddeshay dagaal ka dhan ah dowladda Saddam Hussein. Dagaalkii wuxuu galay marxalad cusub oo aad u adag. Labada dhinac waxay galeen dagaal weji ka weji ah, halkaas oo ciidamada ay isku horfadhiyeen muddo dheer iyagoo iska doonayay inay dhulal kala qabsadaan. Iiraan ayaa la timaaday nidaam cusub oo military kaasoo ahaa Human Wave Attack, halkaasoo kumanaan askari hal mar la diro dagaalka, inkastoo ay khasaaro badan ka dhashaan. Intii u dhaxaysay 1982 ilaa 1986, 4 sano, dagaalku wuxuu noqday mid aan lahayn guul cad. Labada dhinacba waxay sameeyeen weeraro culus balse natiijo aan lahayn. 4 sano, khasaaraha naf iyo maal leh aad buu u kordhay. Mid ka mid ah qaybahii ugu madoobaa ee dagaalkan wuxuu ahaa isticmaalka hubka kiimikada. Ciraaq waxay bilowday inay isticmaasho sunta, sida sunta loo aqaan mustard gas, kaasoo si xun u gumaaday askarta iyo dadka rayidka ahaa ee Iiraaniyiinta ahaa. Weerarkii ugu xumaa wuxuu ka dhacay magaalada Halabja sanadkii 1988kii, halkaas oo kumanaan qof oo rayid ah lagu dilay saacado gudahood. Dagaalkii u dhaxeeyay labada dal kuma ekeen dhulka oo kaliya, balse wuxuu gaaray badda iyo hawada. Waxaa dhacay wax loo yaqaan Tanga War, halkaas oo labada dal ay weerareen maraakiibta saliidda ee ku sugnaa gacanka Faris. Sidoo kale dagaalkan ayaa loo bixiyay War of the Cities, sababtoo ah magaalooyin labada dal ayaa laisku weeraray gantaalo, taasoo sababtay dhimasho badan oo rayid ah. Waxaa burburtay in ka badan 157 magaalo oo waaweyn, halka 1500 oo tuulo maabka laga tirtiray gebi ahaantoodba. Dalal badan oo caalamka
ayaa si dadban ugu lug lahaa dagaalkan. Ciraaq ayaa heshay taageero dhaqaale iyo mid ciidan oo ka timid dalal badan oo Carbeed, kuwaasoo ka soo horjeeday nidaamka kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan. Waxay sidoo kale ka heshay taageero militari Mareykanka iyo Midoogii Sofiyeet. Iiraan dhankeeda waxay ku jirtay go'doon caalami ah, inkastoo ay taageero xadidan helaysay, kuwaasoo ay ka helaysay dalalka sida North Korea oo muuqaalkeena hore aan uga soo sheekeynay. Sanadihii ugu dambeeyay ee dagaalka, gaar ahaan 1986 ilaa bilowgii 1988, xaaladaha ayaa si weyn isu beddelay. Inkastoo Iiraan ay ku gacan sarreysay sanadahan dambe, ayna ka qabsatay Ciraaq magaalooyin muhiim ah sida magaalada lagu magacaabo Alfow Peninsula, Ciraaq ayaa dib isu abaabushay oo heshay awood ciidan oo cusub. Ciraaq ayaa kordhisay isticmaalka hubka casriga ah iyo hubabka kiimikada, waxayna Ciraaq bilowday weeraro xooggan oo dib looga qabsanayo dhulalkii lumay. Kadib 8 sano oo dagaal ah, Iiraan waxay la kulantay dhibaatooyin waaweyn oo dhaqaale iyo kuwo bulsho. Dadkii ayaa daalay, dhaqaalihii wuu burburay, waxaana sii kordhay cadaadiska caalamiga ah ee ka dhan xukuumadda Islaamiga ah ee Iiraan. Ugu dambeyntii, Iiraan waxay aqbashay xabad joojin ay soo jeedisay Qaramada Midoobay. Markii la soo gaaray Agoosto 1988, waxaa gebi ahaan u istaagay si rasmi ah dagaalkii u dhexeeyay labada dal, Iiraan iyo Ciraaq. احنا نقول للخميني يجوز يزعل من كلمة دجال، الدجال مربع. kaasoo ahaa kii ugu muddada dheeraa ee soo mara bariga dhexe qarniga 20aad. Markii la eego natiijada dagaalkaas, waxaa la oran karaa kii ugu khasaarada badnaa ee soo mara qarnigan 20aad kadib dagaalkii labaad ee dunida. Malaayiin qof ayaa ku dhintay ama ku dhaawacmay, dhaqaalihii labada dal uu burburay. Ugu dambeyntii, xuduudihii waxay ku noqdeen sidooda hore, taasoo muujinaysa dagaalkan uusan wax faa'iido ah keenin. Kaasi wuxuu ahaa dagaalkii u dhexeeyay madaxweyne Saddam Hussein iyo Ayatollahi Khomeini. هذا النظام دجال شرير مشبوه غير إسلامي، وأنا أول مرة أقولها غير إسلامي، بس أقول غير إسلامي وعندي شواهد عديدة. أخذ لكم مثال واحد. أخذ الأسرى، أسير يقع، يفترض أنه ينطي اسمه للصليب الأحمر الدولي حتى أهله يعرفون قضايا النفقة، يمشون قضايا الحقوق بين الزوج والزوجة، قضايا الحقوق بين الشخص وأقاربه، المتعلقات في الدائن والمديون، كلها هذه أمور وأحكام موجودة في الشريعة الإسلامية. الزواج، الطلاق، إلى آخره، الإرث، يعني سلسلة من الأمور. شلون نظام إسلامي هذا ما ينطي أسماء الأسرى؟ إذا الخميني ما يدري معناه هو إنسان ما يصلح للحكم، هو شخص أول بالدولة، شلون ما يدري؟ وإذا يدري معناه هو لو ما يؤمن بالإسلام، لو لا يفهم الإسلام. الناس وانتم كلكم قارئين وسامعين وشوفوا الأحكام الشريعة الإسلامية. تجوز لي مسؤول أن يضم اسم الأسرى بحيث أهله ما يعرفون أنه هو استشهد ولا أسير. إذن هذا النظام قائم على الدجل، قائم على الشعوذة، وما فرد يوم الدجل والشعوذة غلبت الحقيقة. muuqaalkeena maanta waa naga intaas.
fadlan haddii intaan soo gaartay subscribe noo saar. haddii hore nala joogtid waad ku mahadsan tahay daawashadaada muuqaalkani. waa anigoo ah Abdaxkiim Elonko. tan iyo muuqaalkeena dambe aan ku kulmi doono fi amaanillaahi wa tawfiiqih. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.